waxaan hambaliyo iyo salaan u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Ahmed Mohamed Maxamuud Siilaanyo iyo xaaskiisa iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Zeylaci oo ah maxay ahaydeen madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland iyo xaaskiisa inta kadib waxaan salaamayaa iyaguna maxay dhammaan bulshooyinka Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal waxaan ku salaamayaa nabadda iyo deganaanshaha Ilaahay inoogu deeqay waxaan qabnaa aniga ku hadlaya afka gobolka Awdal in maanta Ilaahay inoogu deeqay nabadgelyo nabad Ilaahay maaragtay aan ku saxano ku soo toosno magaalooyinka Somaliland maanta waxaa laga ganacsadaa nin walba isagoo intaasoo dollar intaasoo dhabta ku haysta ayaa lagu ganacsadaa ay ka mid tahay magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal ciddii maanta tiraahda nabadgelyo darra ka jirta Somaliland waa cid aan waxba ka ogeyn weeyaan cid aan waxba ka ogeyn inay tahay baanu haysanaa bulshada Somaliland si wanaagsan oo nabad ay ku nool yihiin wadamada reer galbeedku iyaga danahooga og laakiin waxa weeyaan ummadda Somaliland nabad ku joogtaa dadka ay u yeedheen leeyahay dadka baasaboorada Britishkaasta ama ajnabiga ay leeyahay soo baxana waxa weey nabad ku joogan aniga waxaan ahay dual nationality passport British British Somaliland wanaay waan joogaa qalkayga oo nabada iyo maxay ahayd wadankayga nabada ee xukuumadda gobolkayga ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu noogu sii wado nabadda iyo caafimaadka iyo bulshada maxay ahayd horumarkeega maamulka maxay ahayd uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Ahmed Mohamed Maxamuud Siilaanyo waxaan ku guubaabinayaa inay sii wadaan horumarinta bulshada inay sii wadaan kor u qaadida dhaqaalaha bulshada Somaliland inay sii wadaan kor u qaadida caafimaadka iyo wax soo saarka bulshada Somaliland waxa si buuxda u taageersanaa qodadii uu maxay ahayd ka akhriyay madaxweynuhu baarlamaanka iyo golaha guursida hortiisa waxayna ahayd mid muujinaysa horumarkii dalku gaaray wixii ka maqana waxaan rajaynaynaa wax qorshaha ku jirta in la hormariyo ilaahayna aan ka rajaynayno inuu kabo kaalmoodana siiyo aan ku gaarayno horumarka aan u baahanahay waxaan ku soo gunaadaya bulshada reer Somaliland ku hambalyeynaya inay nabadda dhowrtaan inay maxay ahayd nabadgelyada aad iyo aad ugu talagalaan dhowrtaan xubnaha faradkiiska laga yaabo in meel walba ay joogaan oo gobolkayga marka aan gaar uga hadlo waxaan maalmahan aad iyo aad u shaqeynaa xubno soo dhaxgalay dhalinyarada saddex nin farakurtiris oo dibadda ka yimid oo iyagoo og inay u baahan tahay bulshada Awdal ay jiraan kuwa u baahan oo carruur masaakiin u baahan darbi jiifa iyagoo jiraan dad curyaamiina iyagoo jiraan dad isbitaalada jiifa iyagoo jiraan dad u baahan maxay ahayd in wax loo qabto ku isticmaalay lacagaha ay la yimaadeen in ay ku kiciyaan bulshada ku baabiyaan oo dhalinyarada kuwa maxay ku jiheeyaan meelo khaldan kuwaas oo kale meesha ay joogaan meel la dagaalamo weeyaan la iska celiyo weeyaan in bulshada nabadeeda la ilaaliyo weeyaan waana ilaalinaynaa waxaan sheegaynaa cidii arrimaha ku dhex jirta inay sida ugu dhaqsaha badan looga baxaan waxaan ku guubaabinayaa bulshada reer Awdal waa kuwii asaasay ee xoog ka qaatay asaaska Jamhuuriyadda Somaliland maamulkeeda waa kuwii runtii qayb hadla ka qaatay horumarinteeda nabadeeda waxaan ku guubaabinayaa bulshada reer Awdal inay kala qayb galaan oo ay sida ay gobolada kalaba u booriyeen ama u taageersan yihiin nabadda iyo
taageerada jiritaanka Somaliland inay dareenkooga muujiyaan oo ay ka qayb qaataan markasta. Billahi tawfiiq wa salaamu calaykum.